kulanti wanaagsan dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo barnaamij taariikheed aanu halkan idinku soo gudbin doono hal abuurnimada iyo waayihii faneed ee muddada dheer ahaa. abwaan Axmed Salebaan Bide ayaa barnaamijkan marti noogu ah. waxaan rajaynayaa barnaamijkan intuu socdo oo qaybo dhowr yeelan doona in aad ka dhaxli doontaan taariikhaha abwaanka iyo sidoo kale shakhsiyaad door muhiim ah ka soo qaatay sooyaalka fanka Soomaaliyeed oo abwaanku aqoon fiican u lahaa isla markaasina uu nooga warrami doona doorkoodii iyo qaybihii kala duwanaa ay kaga jireen fanka. abwaan Axmed Salebaan Bide soo dhow marar dhowr waynu kulanay, laakiin waxaan rajaynayaa in markan ay noqon doonto insha Allah markii taariikhda ugu dheer aanu ka sheekaysano fanka Soomaaliyeed la xiriira waynu kala horeysiin doonaa. كل نين آذو ورمو آذو حضلات هايو تاريخ ديسا دad badan wax ka og yihiin waxaan isleenahay bal wixii maqan una la arkin dadka ah uga sheekeeya abwaanku barbaartaadii yaan rabaa inaad si kooban aad uga sheekayso dhalatay iyo ilaa aad fanka soo gaadhay waayihiisa kadibna riwaayadaha inuu gudbi doonaa. marka waxaad ku bilowdaa bal barbaartaadii hore. waxa dhawashada waxay 1943 magaalada Hargeysa ayaan ku dhashay. waxaan wax ku bartay iskuulka booliisiya la yiraahdo Police Training School Center Mandera ayaan ku bartay. maxay ahayd aad baa halkaa wax loogu baray. iskuul tacliin wanaagsan buu ahaa, iskuul sharaf leh buu ahaa, madax wanaagsan baa haysatay. margaala ay ma jirtay Ireland badan iyo Scotland iyo waxa dugsiga Ingiriiska Suudaan baa xitaa wax ka dhigi jirtay. markii dambe Soomaali baan wax noo dhigi jirtay. marka dad wanaagsan iskuulkaas ayaa haystay oo ka soo rajaanay iskuulkaas. markii aad fanku waa hibo qof ku jirto oo marba muujismataa. markii hibadaas ay muujismaatay daadu imsaahid horta markii hore aan yaraa iskuulka aan ku jiray Mandera debates wax la yiraahdo doodo maawilada carruurta kale ayaan khamiista ama jimcaha iska markii hore sabtida ayaan iska dhigan jiray oo iskuulka aanu ka magaranaysa dhexdiisa halkaasaan ka soo bilaabay. markii dambe aan ka soo baxay iskuulkii ka soo baxay Hargeysaanimi waxaan ka shaqeeyay markaa warshada electrica dabadna 1964 bishii la tobnaad 12keedii ayaan idaacadaha kaga wareegay oo raadiyo horeysi sameeyay raadiyo horeysi horta dayaxa aan tagay 1962 aan ka shaqeeyay warshada electric iskuulkana wuxuu laba iskuulo intermediate ama dugsi dhexe oo isku jira ayuu iskuul weyn imika dib loo dhisayo aan diyaariyay waqtigaas sidoo ahaa iyo maanta sida loo wado iyo wax talo riwaayada hore matii huriye aad wada dhigtay riwaayada igu horeysay waxaan ka dhigay dayaxa la oran jiray ciili caashq ma gartay inaan u dhashay galbeed oo iskuulka wanka galay iyo inaan caaninayo meesha reer dayaxa oo reer bari ah ayaa dabeecadii isku jeclaaday carruurta waqtin caanaha ka iibsatay dumarkii waxa dabeecadii halkaas isku barteen inantii reerahoodii way guureen inankiina iskuulkiisii baa dhammaaday. inankii markaasi dhow aanu aqoon ayuu damcay inuu inantii ka baadi doono. muddo dheer buu dabeed baharaa la shuraakoobay cidla iska wareegayay isagoo waxba ku nooleen baa dabeedna la soo helay reerii garanaya waa loo geeyey. ninkii inantii waa la siiyey reerkoodiina galbeed baa lagu yeedhay karamaan iyo bancadda meesha la yidhaha baa la isku siiyey daalaa lagu aroosay. filimku waa filim weyn. marka qiyaasun buu mise wax dhacda toos wax dhacay jacaylkoodu wuu jiray laakiin aniga khiyaalka ku sameeyay sidii ay u dhacaysay ayaan ka dhigay si fiican. waa gartay marka dambe waxaa loo bedelay warwadii maxamuud Ismaaciil Xudeedi iyo Cabdisalaam Xaaji Aadan iyo Xasan Cali Himiri niman la oran jiray oo macallimiintii iskuulka ahaa ay riwaayadooda ka eegnay kordhi hadhowto buug ahaan ka dhig waqti markaad dhasho wala leeyahay dabadna beri dhowto ayaan kordhiyey barnaamijkii riwaayadii aan nimankii xusuustay buuggii waan qoray. waxaa la yidhaahdaa waa filim waana buug waana taalla waxaa la yidhahaa dani culus awalan nigi dani culus awalan nigi oo dani culus waa intuu ninku marayay awalan dee nigida waa intuu soo gaadhay. riwaayadda dayaxa heesahana qaaday oo bulshadu baratay ma jirtay
waxaa ka mid ahayd heestii ugu horreysay laguma furayay baa ka mid ahayd heesaa kale labada qaraamiday ahayd waxay ahayd daruurtii cirkaa kugu soo da-ayso doogiyo xareedda daabta hoose jiifo dadkii tacliinta dabaaldegaayo indhihii dilaaca ku daawanaaye adigay daryeela dayaxaay dantayda jiraya dayaxaay dunidaba u roono dayaxaay yaa qaaday markii hore waxaa qaaday nin baashe la oran jiray cabdi caalin oo inan iyo inan matalayay oo istaanti samankii markaa qoladii ka baxday riwaayadda wadaya waxaa riwaayadii bari laga keeno riwaayadda soo qoraa jirtay waa gartay waxaa jirtay riwaayad hadda aan ciyaari kubadda weliba waa gartay riwaayad heesay ka badiyeen barco berbera hargeysa inta way ka badiyeen heestii markii dambe riwaayadda ka mid ahayd ugu weyneyd dugsiyo baa la yidhaahdaa xamar baa laga soo qaada dugsiyo adigay daryeel dugsiyo dantayda jiray dugsiyo balaa anaga sameeyey riwaayadda lagu furayey maxamuud xideedi ayaa codka sameeyey riwaayaddana naga eegay waa halkan shahaadadaba ku qaatay waa gartay waxaa jirtay riwaayad aanan magaceeda hadda garanahayn oo adiga huryo aad wada samayseen waxaa la yidhaahdaa 22 markii ka soo qadaya xagga imigahay aan hargeysa ku kulanay aanu isbaranay idaacadaha isugu nimi waxaanu guulay riwaayad la oran jiray guul ma helaa nin kartaran oo naftiisa gubtaa guul ma helaa nin kartaran oo naftiisa gubtaa nuxurkeedu muxuu ka hadlayay wuxuu ka hadlayay laba nin gabadheena jeceshahay isla gabar jecel gabadh kala jecel dee labadiina isku wada waqtiyada waayahana way ku saabsanayd waxyaaba kale oo ma garanaysa dee general knowledge laakiin aan siyaasad sii weyn ahayn tusaale bini aadmi ah ayay ahayd anagu siyaasadda sidaa maanu dhex geli jirin yaa idin kala qayb qaatay oo ku jiray riwaayadda magool baxsan maxamed cige ilbir oo codadka sameeyey maxamed yuusuf maxamed cabdillaahi diiriye sooraan maxay ahayd xasan muxuu ahaa xasan diiriye maxay ahayd allah u naxariisteen waalitaane cabdillaahi nuur cunaye haddana way kan si fiican ninkii kismaayo ku dhigay cabdi xamdulle cunayo waa ninkii kismaayo ku dhigay riwaayadda sameeyay way kan haddana way kan annagu markaan nala socdo meesha nagaga hadhay waa meesha sheekadiisa wana soo noqon si fiican baa ninkaa isagana aan rabaa in wax kaaga weydiiyey huryo oo saaxiiba ahaydeen halkaas isku barateen miya isaga cadan buu ka yimi markaa aniguna dayaxaan ka yimi labadeeduba original hargeysaanu ahay laakiin nimo meel buu u kacay isagu mid buu ka maqnaa cadan balaayo casrigii oran jiray abaradaas maxamed ismaaciil basre ayuu mafrishkiisa ka ahaan jiray oo adeege odaygii la marin la oran jirayna wuu u shaqayn jiray oo aryalo ahaa ragga ariga faraha badan ka waaridi jiray waddanka ee cadan geyn jiray ayuu isna u shaqayn jiray marka mafrishkaasuu ka soo bartay ninkaasuu ka soo aflaxay waa gartay ka hor waa istaqaaneen laakiin intaan cadan tegin isagu marka soo laabashadaas baratay magacan huryo sheeko aanan saxayn baa jirta oo sida ugu baxay riwaayad bay ku jirta soomaya horta riwaayadda cali sugulle ku jirta magaceedu waxaa himiladeenu waa halkee ayay ahaydoo huryo xayla walaashe iyo hufan xaaji hurre cali jaamac tirikaa hufan xaaji hurre matalayay isaguna islaam isna halkana islaan xabashiyo matalayay kaasina islaan soomaaliya marka hufan xaaji hurre waa soomaaliyeed laakiin huryo xayla walaashe islaan ethoobiyaana matalaysa xabashiyada matalaysa riwaayaddaas imisada bahayd himiladeenu halkii 22 tan kale adii huryo wada dhigteen baan rabaa inaan dib ugu noqdo dabayaaqadeed bay ahayd heesaha aan baxay ee riwaayadan ku jiray ama baxsan ha qaado ama xasan diiri ha qaado maxaa kamid ah riwaayada ku jira wallaahi wax riwaayado si badan baa ku jiray horta heestan guul ma helaa oo maxamed yuusuf iyo iyagaa wada qaadi jiray magool iyo haddana maxamed waxay wada qaadi jireen hees la oran jiray adduunyada waayaheeda ninkii ogimaadidooda adaan kuga eego indhaha iga iyo ilmada qoy ya si fiican heesahaasaa ku jiray heesa kaloo qaraamina way ku jireen soo baryaa qaraami bay u badnaayeen codadkii qaraamiga habaa lagu qaadi waa gartay codadkana waxaa sameeyey ilbir maxamed ciga sameeyey maxamed ciga ilbir waa gartay waxaan u imid markana riwaayaddii al-aamin ma ishe 64 bal fikraddeeda kolka hore fikradda aniga lahaa
sheekada ilaah baa wax leh sheekada anigaa dhigay riwaayadana anigaa alifay waxaana ila tiiriyey oo si weyn wuxuu ila qabtay cabdilaahi diiriye sooraan markaa codadkana anigu laba midhoo yaryar oo markaa taaliifta igu horreysay ayaan sameeyey inta kale waxaa sameeyey maxamed cige elbir waa gartay heesaha ku jiray geeri doontee maanta aan go-so kuma jirnaas ha waa riwaayadda ugu dambeysay baan umalaynaya ha heesta ugu dambeysay baa ha iyo baxsan qaadisi anigan caashiqu taabay tallaabo u diiday wuxuu u tamanaya adiga u tari lahaa yaa markii hore waxa wada qaaday heestaasi maxamed yuusuf iyo baxsan kadibna maandeeq iyo tubic baa wada qaaday oo cadan baanu markaa tagtay waa gartay heestan geeri qarsho aan madaxaado cadan baanu tagnay markaa markii dib loo dhigay riwaayadda imsadii waxay ahayd sigista foorkii baa dabaaqadiisi gaalkacyo meel lagu dhigay markii hore riwaayadda may xagee ku dhigtay may de koonfur ilaa xamar waa si fiican heestan geeri doontee maanta ango nuxurka gudbinayso ereyada marka si yani maxaa ku dhex jira oo riwaayadda oo dhan baa heeso badan lahay maxay ahayd alla aamine ilaa nifka kuma iseedkeeda tii amniga qaar arrinkee lunsheeye iyadoon la filayn ma hagaajiyay ilaah yaa ooridii markaas iyo adeecdaaho rag ninkii arrinkee arrinshay aanu aayo aho iyo dee qaadayeen maxamed yuusuf iyo riwaayadda ku socotay riwaayadadii heeso badan bay leedahay qoraami fara badan markay soo socoto ayay kusoo go-aysa dee inanta waa la xirxiraya aabaheed baa lacag qaadanaya xoolo dabadeedna riwaayad aabaheed xoolo qaato oo inantu baxsato riwaayadtii ugu horreysay ba aabaha yaa matalay aabaheed anigaa matalayay saaxiibkeena wuxuu ahaa cabdilaahi diire sooraan mardhoofna wuxuu ahaa xaaji basbaas oo ninkii soo degay inanta aanu siinay buu ahaa dabeedna inantii miyay u baxsato odaygana lacagtiina way baxday dukaamaa lagu sameeyey baabuur baa laga iibsaday waxbaa dad baa loo arrintiray lacagtii way baxday inantiina way baxsatay ninkii baa yaab soo haray dabeedna sooraan baa yidhi maxaaynu yaallaa aan idhiyo arrinta ay kaso dhan isa soo mitixin buu yidhi milyankii shilin weynaba meel baan kuugu hay sabtiyaan markii qaadee malaaxaan marya aan uga iibsadee macdarka samaystee markii baan ku khasaare aan moori karaystay mashiinkii ku dhaqaalay dee waxaas milyankii shilin weyne wallahi waa ka marnay meel aan kuugu hay isa soo mitixin baa la yidhaa marka gabdho dabeedna halkaa uu dagaalamaya riwaayadda waxay kusoo go-aysay milooxa beerku ka laaday annaf yar bay gumaysa yaa maraykani baa hagaboobay odaygu mardhoof dabeedna wuuna la kala laayay ninkii marka sheekada dhacda waxay nimba meel ku asqabo ajiib baxsan mooyaane gabdho kale ayaa ku jira riwaayadda mar dambe aanu matelay inan maxay ahaday inan kale naga matelaysay inantii magaceediin kuma hayo waa garta riwaayaddii kale ubucday african rabaa iyadana markii hore keligeed bay matelaysay mandiiqna keligeed bay cadan ka matashay riwaayadda daba ilaa dacan ayay intaas qaybi jirtay filimkaas mandiiq iyo baxsan iyo saare axmed matalan ma jiraan iminka hablo filimka intay xagga hore ka bilaabaan xagga hore ku dhamaysanay dambe oo habeen ku xafidaya ma jiraan way adagtay waxay cadeynaysaa yani hamadii loo hayay dadka isbedelka iska dhacay riwaayaddii ubucday african rabaa markana iyadana aan u nimaado imisada bay horta taariikhdeeda ti africa ubucday africa riwaayaddii ubucday africa waxay ahayd markii u horreysay afrikaanku madaxdoodu isugu timay muqdisho ayay ahayd 74 no 66 dhammaadkeedii 67 oo cabuud oo ka socday suudaan iyo aadan cabdullahi cismaan oo inaga inaga socday maxay ahayd jomo kenyato ka yimi kenya iyo xayla salaasi oo ka yimi halkaa adisaaba iyo madaxdii oo dhan oo wada fadhida baan loo dhignay soo gaara gacalkeena adduungelin baa waxay maataga golmadoon seexatoo rays galgalanaysa iyo gaado iyo weerar iyo guluf ku saaran aan ka gubana waa guuldarraba tii u geed culus soo gaadha gacalkeena adduungelin baa waxayn magol baa qaadaysa askana maxamed warsame baa sameeyey maxamed ciga warsame elbir baa sameeyey riwaayadda loo bacday afrika ay ahayd mandiiq waa tii qaadaysay haddaan dhiigga loo horan dhulka weer laguma soo heleen magool iyo maandiiq mooyaane riwaayadda yaa kale ka qayb qaatay
عثمان محمد بك حسين غيب ها محمد يوسف بك غيب عمر دولاك غيب قات عبد الله عبد الشباك غيب قات انا قاعد سلام ذاك قات هو غيب قال عبد الله دير صلاه ما قال سحردين محمد بك غيب قال مور بس ku tagtay in marka Umar Dhulo kale muxuu ka qaaday riwaayad heesta xiise aan gaboobayn heesa aynkaasa afrika aynkaasa gobonimada waa jecelahay idinoo inaan la garataan gayagana siisaan yaa rasiidkeeda markaa loo hees imid yaa iyo xiise aan gaboobayn isaga iyo shantii hablood waa la kacayba halkaasaanu kaga helayba xamar yabaa noo metelay reer xamar iyo reer hargeysa noo bartamayn halkaasaanu kaga helay dabeedna cabud baana siiyey 100,000 lacag ah 100,000 ku maamulay idaacadda xamarna nala qaybsato waa walaaladaya anaga mar haddaan helay sharaftii nala qaybsadeen iska tega baa loo bari dambe hargeysanay inba lacag boostor hoosto baa la ilaa cas ku jirtana loo keeni jiray naloo keenay dabeedna ku qoylay madaxda intii kale iska wadatay waa gartay taas waxay u buuxda afrikeedana waxaan rabaa iyadana riwaayad waxaan filay huryaa lahaa adama la heesad ku lahayd miftaax baa la oran jiray miftaax ها ورد المفتاح من الكتاب هستي وقعن لو قاضي ku jirtay riwaayada maxaad ka ogaadayda waxay ahayd ciid bay ahayd riwaayad ciid loo sameeyey bay ahayd marka bariga dambe cid bay dad bay ku sheegeen moogta laakiin ma aha in ninkaasi wixiisa caadi buu samaystay ya maxaa lagu sheegay in aabihii ka maqan yahay oo reer kuna leeyahay oo isagu maaliyadii haya oo iska tumanaya ayaa lagu metelay riwaayada laakiin ma ahayn qoys baa lagu sheegay laakiin ma ahayn oo anigu ninkii riwaayada wax ka qoray baan ahaa ya marka ma ahayn wax aan jirin bay sameeyaan oo wax exaggeration been la korkordhiyay bay ahayd oo laga dhigay run been maxay noqotay been fakatay run ma gaadho baa la yidhi taasay noqotay aynkaas heesaa ku jiray riwaayada waxaa ka mid ah heestii uu gacan loo qaadayay magaca riwaayada wadatay miftaax maradan miftaaxi midig maradan miftaaxi midig taa ku haysta marxin maayo xoolaha walba aynkaas ahayd waa gartay hees kale ku jirto walba aynkaas maanta canabe aan ku ciidno ya gacan loo qaaday ayaa inaguna ciidna soo ya idinkuna ciid anaguna ciid maayo taa aboon qaas baa lahaan filaya taas ma waa laga yaabaa maybe laakiin hees أنا بدأ كل عيد هبلا قاضي هبلا ما بقولي منطقي هي قاضي كل يوم شنت هبلا ذي العادة هي القاضي ويسوين بيت إذا كنا عيد مياه ما واقرت إن مركا إمسي تاريخ رواية داس هوريو وحيد 67 كيلو فيليا 67 واقرت وفيليا إن روادي قرش قرب ويدي سموي لقاري إمس ذي تاريخ ذهيت واحد فوت كي بيهيت سيجي كي سو جلست سي ملا بيتا يا عبد الرشيد يرعى يا مركي دولة قبتين مركي لدورني ها يا أنا عبد الداعي هست اللي حلو صاري أيه هيت مركا قرش قرب ويدي واحد قرش قرب ويدي هتسموي لقاري رواد iska caadi ah magac muxuu ka dhigay geed caleeni garasha garab weeyday had samooyo la gaari waxa weeye waxa adduunyada abaalkiis ma helo qof kasta wax u qalmo ma helo wax yar baa hela very rare ya waa gartay hada cadday markay ku dhaceen bay tahay hada cadday markay saareen markii food kili helay markii saddexaad bay aadan u saareen heestaadii leexda ku sidaysay heestaasina saabay dooniga gabadha iga guursaday baa iska samaystay dabeedna qoladii meesha joogtay baa isu saaray heestaas waqtiga ku habboon hala saaray ina cigaal iyo mustafaxa jumhuur iyo aad ka dameeyay gabdoon iyo qolooyin caynkaas baa gabdoon ninkii riyaa dhintay lana xariis cabdi marka 67 bayt heestii sida geed caleen iyo maxbuudkii kariyeen bay ku jirtay qariyeen ku jirtay oo maadna si nafteedu ku jirtay oo ogal weeye mana horto ilaa cana madayso ya ku jirtay waxaa ku jirtay dadku waa la noolo oo nabad ahaada la noolo ama waa ka noolo oo nacab ahaada yaa laxmada saaray heesaas riwaayad cad cabdilaahi cabdiqays lahaa oo ahaa adduunyaa gabaabsi balan kuu ged sheegtay
mahir kalaa u guurteen marka cabdi baa lahaa midhahana isagaa soo qabtay yaa qaaday oo sameeyey kooxda oo qaadisay dee waxaa qaaday saare axmed iyo amine cabdilaahi iyo yaa ciise warsame iyo axmed gacite iyo maxamed aadan dacar oo ka ahaa maxay ahayd toore ka ahaa iyo waxaan filayaa heestan si yar moo shuban anigo ku jirta samayn maya hees baraagkeeda baa gooni aan noo samayn oo aaminaad gaar ugu dhiibtay ها ما قد يسكت غير نقار سمين جري رابلو اللي قاعد نجري سيدي يتن وهذا مو برتي هالكين مريء كوري من رقاصها والمناسبة يعني مركا سارح سارح مدوحن فيليه وروايد ugu horeysay ka qayb qaatay Soomaaliya يا من عبد الله يا من عبد الله سهر heesaha u dhiibtay isla riwaayadaas kuwa sanbay wax ka matalis kuwa sanbay wax ka matalis waxay kuma yaro dhayda iibisay shircaanaha iibisay bay ahaydo dabadna heerkooda u shaqeyso dabadna nin basaska leh ayaa ina ka inantii inay fiican tahay rasuuli baska dhayda ku qaado caanaha ku qaado waan ku caawinaya reerkiina u shaqeysaa u dadaalaysa waaba isku afkarteen halkii waa inantii dhayda loo bixiyo ninkii laaba guursado reer barbad abin cabdilaahi waxay matalaysay labadu waxay ahaayeen midna adeerbaan ahaa midna waan dhalaa aniga aabooda moogta markaa tikana waxay matalaysay inaan iskuulka ka baxday wax bartay oo markaa wax bartay laakiin kolba nin guursato kolba nin ila tagto kolba xoolo iga qaado kolba meelo ya adu isla wareernay ayay ahayd ay matalaysay marna si naftayda yaa la xameeyey marna si naftayda marna si naftayda anaa sameeyey codadkaa mar riwaayada ku jira inta badan anaa sameeyey maxaan kaaga baydho ama kaaga baqda dacar baa qolooyin kale ku sheego oo berigii aanu kala yar xanaaqnay oo sida geed caleen iyo wax gudka qadeen markaan xamar tagnay ee saare axmed qaybsiisay maxamed axmed allah naxariistay dabadeedna dacar riwaadan ku talay ya halkaasuu ka xanaaqay oo heesta kolka hore dacar baa qaadisay dacar baa qaadisay riwaadan ku jirtay isagaa toora ka ahaa riwaada xidig buu ka ahaa kulcuna uu ku jiray riwaadada laftiisa maya xamar baan ugu tagnay markii dambe dib loo dhigay maya markaan tagnay xamar iyo heesta gaar u xiftay ayay inantay isjeclaayeen isguursanayeen saare axmed dabeedna heesta hees wanaagsan ay tahay aragtay ayay qabilsay ayay qortay ya sahra iyo maxamed axmed imsida bay isguursadeen waqtigaas heestan may baaqday sida beel hore waxa wada qaadi jiray sahra iyo wax wada qaaday iyo dacar marka hore iyo hiba iminka wada qaada kolka laakiin sahra ka horeyso sahra ka horeyso iyo min cabdilaahi iyo midho badan bay lahayd wax lagu qaadi jiray riwaayada lagu qaadi jiray adaana la xameeyey codadka badankood adaa sameeyey sax waa garta taasna intaan ku dhaafaya waxaan rabaa riwaayadii la odhan jiray dadku waa kalamaan dadku waa isku muuq dadku waa isku muuq markaanu iska soo noqonay xamar ayaa aniga la yidhi riwaayad noo samey aanu ku noqono dabeedna markaasaan sameeyey markaas amine feeri iyo baasho sheekh yuusuf iyo saare axmed baan matalayay baashiikhs waa ninka baashiire la odhan jiray wuxuu nin sharaf leh oo baan karaab hadda dhow buu dhintay mar dhaweyd ma hubo inuu dhintay waxaan filaya 2 sano waqti hadda laga joogo inuu dhintay والله ما مخليك جريدس وانك قادر هاستي ومهاد الى سما قادر dadka badankooda laakiin ninka wax u yaqaanaan waxa yiraahdaa waa qaasaali bay yiraahdaan marka heestaas maaha waa isaga maaha waa baash maxamed ayax ma filay inuu ilaha midhaha maxamed ayax codka way isaga sameeyay riwaayada halka ku dar oo wax ku jirta riwaayada ku jirta dadku waa isku muuqdaan oo kala ma ismaaciil axmed waxaan ku uri meel riwaayada soo dhameeyay halka heesta ay ka sameeyay وجهك الحشود كانوا وقتها يسمي حسين وصلنا واحد هلقى ماشي على قاسم وحكسه سمي وحكي سمي يسري انا فرق ميرا يقول فريس مرو محمد محمد يا حلو يسمي مية مقالة بلا ما انت تشوفها سيد عامل وقت كسو سمي يا سماري رواتي يسول مليون تصور حديقة هو كلمان تكوا اسكموق هذا هو كلمان يمسد في ابونا 68 waa gartay heestan anuu falago meera igu farayareystay maruu waa hees aad u cajiiba runtii maruu maxamed waxay ku jirtay riwaayada ku jirtay yaa la xameeyey ciise dhancadde ilaah naxariisto tiisa xishood kala waabtay waxa sameeyay codka ismaaciil axmed baa sameeyay ismaaciil yare ismaaciil aw axmed macallin haruub ismaaciil cagaf weeyaan ismaaciil cagaf miya magaalada maxamed ayax baa sameeyey codkii midhaaba tan aamine firqaadse warsan iyo weersan waa ismaaciil axmed eriyada u leeyahay wejigana xishoodka laxanka yaa sameeyey
isagu ma sameeyey waxaan arkay dad qorayo ama sheegaya inuu lahaa Rashiid Bulo ما ها waa gartay رشيد بن مركان لما joogay riwaayadii hore wala joogay garasho muxuu ka matalay isagu qaybtaha ma miisish ma fiyoolin ku tumi jiray filimada ma miisish waa dumanka kama ku tumi jiray ha waa gartay riwaayadana wax yar dul istaagna dadku waa kalamaan dadku waa sumuq adana waa kalamaan nuxurkeedu muxuu ahaa dadku waa isku muuqdaan kalamaan ujeedada waxayd gabadh ilaaha baa la siiyey nin wadaado kuwait ka yimi oo shabaab oo dhalinyaro oo qurux badan oo weysadiisii iyo kutubtiisii wato oo lacagtiisii wato dabadeedna gabadh baa la siiyeyo gabadhii la siiyey waxay tihi war anigu wadaadkan u wataagayo weysadiisaba ee aabba iga daayo oo halkaasaa la isku wareeray adiga markii dambe inantii ninkii waa la siiyey waa loo diray hala saaro diyaarad ilaa saarim kuwait xaajigii hala gaadhsiiyey inta halkaasaa dabeedna maaragta ay ku dhamaatay laakiin ujeedadu taasay ahayd dadka waa isku muuq haddana waa kala muuq dee naagta wadaad weysale oo shabaaba diiday oo kutubtiisiista oo lacagtiisiista caafimaadkiisii qaba xaggee bay ku socotaa dee dadka markaa nin madha rabaa muuqamadi maxaa la yidhi iyo malabtoona muuqda sax gabadha markaa tumahayd gabadha qaybta matalisi waxay ahayd amine firte amine fir ninkuna baasho bashiikhis waa gartay sahre markaa xidigta labaadna sahraa matalaysa sahra maxay ka qaaday heesyadu allah ilaaha illa heesa badan bay qaadayeen adaa madluunkiiyo murugadaada naftaada noqdire adaa madluunkiiyo murugadaada naftaada maqane maydha horseede bidixda midigtaa diyaad mooday oo maalaan iyo mala xumaan ya gabadhii ninkiisna kaa noqoy kaasay labadooda ku qaabilsamayeen sahre iyo waxa qaadayay yaamanafir marka waa hayskan codka markii dambe oo baxaa ahaye cabdiqays oo ayagu isku yar walaaqnaayeen aan saaxiib ahayn waxay isku jireen ayaa markaa codkii caashiqo mira ku samaystay okii maxamed moogo dhimiya هستي مرباض هقول مي وقت مرباض إلا أذكر أنا الرياضة سكتري سهرانة هست قادس كل غرض سهرة قادس يا أمين فلوس عقل علنا هي يا مركا هستي ما عم بحض يو هستاس أمين يو قاضي يو هذا الرياضة ما يتابع من وين قرين بوق قرين ما شاء الله أذكر والله يا ما قرت إن وحنا من مركنا تشيل تعال شريك عائل واحد وين تاريخ ذا إمسى ذبح طبعاً يو 72 سيدا يكون أنا رواد والله إنه رواد سيدا هرت نمت عائل قبا إسكان صوالة مارك حميدي سناي وينته كل واحد أكو سنة حياة أنا أكو يوم محبوسة أنا لقى بدلها رجسة أنا نطقنا منيرة إحدى مركز مرة نلبطه ayaa gaari big foreign lagu siday 12 baa saacad sanadku waxa 12 baa ko saacadna maalintana waxay ahayd maalin 11 12 bay bisha saacad 12 baa ahayd waxaan ka soo wax isku aadismay waan qoraa marka dhabato markaan u barinay dooxeeda ayaa roobda oo xareed baa maraysay dabadna mid badan oo naga mid ahaan baa yiri ilaahu cambaarka naga qadin armu gaarigu jaba xareed aan ku marinay xabiis baa noo xareed ma arag gaariga markuu dooxiisa uga baxayay inbaa birtaa jeenka ee wareegta ee xiriiriska inbaa baftiri hariyaha badowga marbuu tacaleeya rumaano wallaahi waa kaa inoo qabtee dabeedna oday meesha ku ahaa makhaayad oo station police ingiriiskii sameeyey oo iskaga tegeen dee boliiska wadi xagga kale laga dhigtay malaa meel kale laga samaystay daar weyn oo uu ku jiray odaygaasi oo makhaayad u ahayd ayuu meel weyn oo banaanayd oon cidil gelaynin noo xaadhay foox buu ku shiday buu rusheeyey orgisooda buu noo qalay meeshaan fadhiisanay saashin iyo laba askari baana watay 12 maxbuus baanu ahayn dabeedna askarigii ma ku urun waa baabuurta wadada maraysa agteena aan nooga soo qaado dee jaad iyo sigaar iyo bal waxaynu dee maaragtay ila gaariga waa ka jabinta gaari laynoo imanayo markaa waxaan ka sameeyey inan yar oo ciyaalkan dumarka wax kala carcaree maagteedii jirkaa iyo inan yaroo
hooyadeed qudrada u dhiibato oo meesha wax ku iibisa oo isbartay waxaa barasha waa aada moogta isbartay ayaa iyagoo waaweynaaday inankii dadkan wax qaadqaadan yahay macnihii tuug ayaa inantii hooyadeed lacag laga xaday markaasay tiri aniga garanayo nin booda deenaya xoolahaas markaanu yareer maanu isjeclayno anaa garanaya dib hooyo oradoon bay tiri inankii bay soo heshay ninkan lacagta xadayna waaba saaxiibkii dee jacaylku lacagta ka weyn ayaa macnihii ahaa ninkii lacagtii waa ogaaday bilayskii baa u yimi inantii baa u timi dee maantaan halkaa ku qayalayna dhaqmo qabtan buuri dee iyagoo iska tumanaya oo kalba inuu idhahdo hariyaha magaaladii ma gariirti maxaa magaaladii ma gariirti sunaga waxeedi cunayna suu idhaa hayaa inooda daawteena leelalaw laaw leelaaw laaw laaw hariyaha daaqadda yanu garaacaya suu idhaa dee madha waa magaaladii magaalada maxay naga rabta sunaga waxeedi cunayna waa iska wad laaw leelaaw laaw dee daaqada waa laga tuma bilayskii ma qabtay laba nina soo tilmaamo la wadaaye lawadaha ninkan kula wada goolka kuwa dheelaya dee dee halkaasaa lagu qabtay ninkii iyo lacagtii sheegadi waxay noqotay jacaylku lacagta ka weyn isagaa ka weyn ahaa ka weyn ragga idinla socday gaariga markuu idinla jabay dadka la garanaya adiga iyo nin la odhan jiray cali dhaaf ayaa jiray oo reer barcana ahaan jiray marka qoladii berigii lacagta loo qabsan jiray ismaaciil dadqaliyo dhaag hamarso nin la odhan jiray iyo cali dhaaf iyo qolada caynkaas bay ahaa laakiin dad fanka xiriir la adin ba jirin dad fanka keliya ma adiga hargeysa laga xidhay hargeysa laga xidhay marka kacaankaa ku xidhay iyo dowladda markii waxaan la soo rarraay cali sigala wuxuu sameeyey annagoo xamar joogna barnaamij yaroo la yidhaahdo waxbaa ku jira dowladduna wati markaa dee magaraysa cusbayd ya kelmadii baa nalaga soo raaco nalaga soo daba kale dee nin basi loo qabtaba cali sigala waa la qabtay waxaa tiri baa la yidhi wadaynu kala rogan ridahaynu kala xidhan waxaynkaasa riwaad ka samaysay haddana qoladan waxaad qaybsisay barnaamij yaroo idaacadda ka baxeen oo la yidhaahdo waxbaa ku jira ha ya markaa wuxuu ka baxay idaacadda radio muqdisho dee maxay ahayde wasiir baa halkaa maraya oo muxuu qabanaya beeruhu ka sheekeynaya kaste waxbaa ku jira kaasuu ha wadaad baa ina waanshay oo wuxuu inagu yidhi waryaala sidaa iyo sidaas wanaag baabay ahayde waxna waa ku jiraani waxbaa ku jiradii baana loo raasraacay markaa three by three saddex iyo saddex ayaa la xidhay huriyo oo mar walba meel soo qabtay aliskilo margeeniga la xidhay anigoo margeeniga la xidhay laakiin sababo kale la sameynayay sabab kale la sameynayay laakiin waxay runtahay waxaa idinka shakisanaa yani inaad gacan ka soo horjeedaan markii jananka iyo korneelku yimaadeen ismaaciil axmed iyo korneel cumar mandheera oo yidhaahdeen maxaa nimankan xadhigoodu yahay fanaaniin weeyaane halkan keenay waxaa loo qare waxaa loo xidhay inay soo nastaan waa garta yani dowladda ku kicin iska nasteen inay soo nastaan soo nasteen ismaaciil waa ninkii asluubta haystay miya janankii asluubta haystay korneyle cumarna dee waxuu ahaa ninkii ku xigay ku xigay ayaa ahaa waa garta markaa markay imtixaanan jiraan sanadkiiba mar bal jeelka lasoo maraa markay soo mareen ayay yidhahdeen nimankan maxaa lagu xidhay maxaa ahaa lagu xidhay waa garta waxaa lagu soo qor riboorkooda waxaa ku qoran buu ninkii madaxda haystay meesha haystay xasan cabdi khayre inay hanastay nimankaasi waa garta markaad dhubato ka tagteen riwaayaddii madheeraa toos u geysay adigu riwaayaddii adoo haya haykalkeeda waa iska samaysanaya ayaa waxaa bandhigii octoobartii dabeedna octoobartii baa xasan cabdi khayre meesha haystay jeelka haystay madheera ayaa yidhi war barnaamij baanu samaynaynaa bandhiga weyn ee octoobar ee laga qeybgeliya waddanka o dhane yaa asluubtu maxay keentay baa la odhanayaa waxa aan idin tusan wax ka sameeya dadna idin heesa iyo wax tumana anaa xagga ka keenaya waayahay baa dhan bal waxaad haysa keen wuxuu keenay tamanadii baradhadii basashii kudradoo dhan rumaankii canabkii timirtii waxaas cunto oo dhan buu keenay haruurkii galeydii waanu yaabnay wuxuu keenay digaaggii wuxuu keenay beedkii
yaa صح wuxuu keenay roogag oo lagu dharko guryaha la dhigo oo qaarna xigil laga sameeyey qaarna dhawarta xoolaha laga sameeyey qaar wuxuu keenay boorsooyinka duurka qaadanayay wuxuu keenay waxay keeneen kaaryoolayaal ay sameeyeen wajarafad ay sameeyeen waysooyin ay sameeyeen nijaaradii oo daarihii ay dhisayaan oo inta maxaabiista samaysay haa dee meeshii oo soo amarreeba tiyaatarkii markaa geestayadii oo isla xabsiga dhexdiisa markaan nimidii hargeysa xaggaasaan kusoo baraysgalaynay markaa sanadkii waa soo noqotay sanadkii baanu kasoo qayb galnay bandhigii wadanka oo dhami lahaa october haa idqoo walba wax keenaysay idinkoo maxaabiisa haa waa gartay annaga maxaabiis baan hayn laakiin qolada nala shaqaynaysa maxaabiis may haynte maruuc xamed iyo inan kale iyo maxamed yuusuf iyo ayaa nala heysayay allah u naxariiste dabeedna wixii markii la arkay iyagaaba ka galay heesay roon ku samaynay iyo shaakadii iyo wixii maan ku samaynay jeeli jacayl haa ma jeeli jacayl weli ma gaadhin tana loogu fasixi doonaa bay noqonaysa sababtana loogu aqbalay ayaa riboorkaas ahaa heesahaas maxamed yuusuf iyo marwo maxamed ay qaadeen maxaa wax hirgala ma ahayn mise waxay ma iska caadi baa laakiin wax soo saarka dalkeena iskaa wuxuu qabsaday had isku hadlayn ya wax soo saarka dalkeena markaa dadka maxaabiista adiga iyo huriya yahay dadka fan markaa aniga huryahay kadibna jeeli jacayl baa laidin fasaxay sababta loogu fasaxayba riwaayadan ahayd taasay ahayd markii dambe sananka iyo korneelku yimaadeen maxaabiistii sheegalayeen maneera ayaa layidhi waa nimankii sameeyey barnaamijkii ay nimanka ku galay halkana waxaa loo keenay inay nastaan ya sidaasaa ku qoran haa dee iminka riwaayad ma haystaan haa maxaa la yidhaha jeeliya jacayl ayaa sameeyey axmed salaam binti oo huriyana dhowaan buu yimi uu la caawiyey isaguna si wacan buu xugala qabtay way isku raaceen haa markaa dee waa kuma qoray ba huriyana waxaan idhi wuu ila sameeyey maanta riwaayad my record buuggeyga dee sida ku taabtaa intee qabyo ahayd marka huriya ku yimid riwaayadda waxba qabyar ma ahayn kula qurxii laakiin wayla qurxii laakiin sheekayaha buu ahaa sheekada qodobkaa kadib kaa inuu kaa wadarinaa wanaagsan la taliya iyo wanaagsan bu allah naxariisa imise dabeed markaa riwaayadda dhigteen jeelka dhexdiisa ku dhigteen dee 11 kun sagaal boqol koob iyo todobaatan isla sanadka leeda xidhay 1971 oo sanadka leeda xidhay maa riwaayadana dhigteen 70 baa aniga la xidhay isla markiiba igu dhawaaba xamar baanu markaa ka wadanayba xamar baanu ka wadanay fanaaniintan kale ee markaa riwaayadda waxa ku dhex dhigteen jeelka meesha Mandheera markaa dabadda yaa ka yimid banaanka yaa ka yimid fanaaniin kale ahaa dadkii xidhnaay adigii horiye marka laga والله لبن حسن صودي قبلاح نكي حد قال لما تلا يا ابو راس يا حوق سدي يا انا يا هوريه يا الله صلى سراء احمد يا بشير حدي يا محمد سليمان لو رجل بيقل كتوم شري كارلات كتوم شري موسى كرسي لو رجل شري نور كلنا دربان كتومي علي فيريس او فيلينكس فيلينيس فين كتبه كما كتبه وحب تجربها توابد هيسا كلو قريبه عصبه نقول تري حتى مغير انكم بس ياخذ قرنا xoog sida laftiisa de uu ku cusbaa samay ها markaas aan wada waris laakiin waligood wuxuu ahaa gabayaawo shaacir gabayaawo gabal la xilfs in heesaha ku jireen anigu hadda xasuusto heesta sida qabax baa ku jirtay saare axmed iyo abaras wada qaadiyeen maxaa kale ku jiray riwaayadda hees wax ku jiray sida ubax waa beriga ya ku jirtay ya saare axmed wada qaadiyeen iyo maxamed محمد اسماعيل abaras iyo heestan kale maxay ahayd ما ساحلنا حالي أنا أقول صلاقي ما ساحلنا حالي عن سرف لي يا سرف لي بس كلا باكو شيء هسه بدن باكو شيء هسه بدن باكو شيء هسه بدن شيء شايل بلا نيبا هسه بلا نو باشوف رقعتها هي يا استاذ كتشرت سهر قاص سهر يبقى أبراز صدح صدق قاعدين يا الحمي صدح حبوا جرت هستي كله ورجلي مساعدة اللولك لازم ده بونا الغديه لمانا لبس بكي أروانا تذكر الله بالله ذنب
يا لو اسكو لو انت هذا يا الحميه اساسي شيء شايل انا سي رواية دم بدل الحميه انت بدلها هيس بشير حد السمي هاي marka eegan ugu ooyaya adduunyada oo dhan ma qarbo ya fiican inta lahayd maxay ifka qoon la isku aaminay lahayd soo saarmay saarina wala qaad bayda dib ma loo dhigay riwaayada mise halka mar bay ku eg sheer shayl waxa la yiri mar anigu ma qomay macnaheedu dhigaano wallahi anigu ma yaabay moogti riwaayad adag bay ahayd dadkeedii wada jooga mooyaane lama wax lagu dadey karin riwaayad adag bay riwaayad adag bay وفيلم إنه دل قيبان أنا ما بيرد ورجع ذي ضطر قاعد قيبان يبان ها أيوة ما اللي دكسيف دا يوم ما الرواية دي ما تمين بانس كأي أنت صاحب شيء ما قدر ماني شيء كقولي سكتش هو إمس الصنو فلأنه هي صار مش كي غير شيء تبدأ لا حبش كنا قدر ماني وقت أنت هنا الرواية قد بين شيكا شرتي حتى كورة ديك شيكا شنتي حبسي قاعد كنت شرتي إن صامرتي هذه هريو هاستن بدأ عاشقين كلن بل كشيكا تدك سبي أوفسران سنة ويتاي ما هاست سنة أوفسران سهراء أحمد بالله ونحرسته كيف تقول ركتي هستي كده الناس وقفت وحوين هست رسالة كتاب على واحد والله والله بالله والله حرير لحين حرير شعير بالله لحين يا شعير يقول يحبال في شيء marka maxamed cudhur inan bay saaxiib hayro intaas ay saaxiibka hayro jirka noogu mid saaxiibna kala maayna xiriirkaas wanaagsana ay ku wada socdeeno inantii baa noo tiin maalin dambe markaasay tiri waxaan tegayaa Jabuuti waxaan u dooranayaa dahab iyo dhar xariir iyo cadar ayaan u dooranayaa inantii waa reer wadan bay ka dhalatay waayahay baan aniga intii aan saaxiibay timiyo saaxiibada noo timiyo waxay tiri in baa 60 kun oo shilin oo gabaatiya reerkii sameeyay iyadoo England ka yimid idoo aan bixinaya inta lay guuriyo England aan la tagay halay ku daro maxaa yeelay jeero wala saxna maragta tan waxaan ku niri wado Hargeysa taad soo maray oo lacag reerkiina u qaad anagu dawladda wadaago shuuciya baan u xiranahay ya reerka lacagta u qaad warqad waa qortay markaas ما أنا بيصير كذا بس ما وضع الله نعبلا أبوه صاحب هروي السعوديين بقى إنكستو مليون ما يورك النور شكت محابس بي واحد مياه مسدد بناك خيمي تبع حبلي مقارنة زي هاي عرضها أو إنصاب بغضي بدنا من تروح حديد بنقدر ولا تعالى سفيان تبدنا تي واحد قاسي تليون كسر فكرية ما عندهم أيام فالين خاصة والله حبلي كور محمد عمر هذي رسول تيجي بتسأل قلمس ويسقى هي تيجي كسر الله كسر الله وهذا فالي هذا صادي زيني وسلام الله ما صادي خلاص وكله رسول هذا المية وإلى التهيبر كبر هاسي في المقال كيش على زين ده كشوف هذا يدد السلام سلام قلمس وين يلبس أنا هاي كمان إنك ور يلي ما يسوي الثاني بعد ما عينت تليون سوف كريه ما يلي يسوي لعقتها هي كل ضوء حارقي سو لعقتها صومرتي ضوء بتاعتك وما قاعد يسوي سيدي أولاد حبين كامركا قبل يسوي كي ولا صور شيء إلا كل شيء نشوف ذي النبأ أو بيرة شاطر الله الله عقل أيها علي ويقول سيدي قرص أنا قبل ويتيتي إني قرصته reerkii ninkii qaadanayay marka xabsiga ka soo baxay waanu iskursanay gabadhi way sugtay laakiin iskamaanu raagin markii waa ilaa 3 bilood markaan wada joognay waanu kala tagnay xamar baanu tagnay labadeeduba dabaa xamar baa gabadhii aanu isku seegnay garanaysa ya marka haystaan ka tagay marka dad daas qabataan ilaa wada tawta axmed nuuga qaaday تبغى كوير يربى له طبعا إمسك قالوا قد عايزة واحد هذا طبعا اللي لابد مناس 73 73 مركز بريد دمبي أي سارة أحمد ما خشيه سيهوليو مركز سيتي هوليو يا سلام بدا ما بار وده تليو كل ما سيد بدنا على ما وده ديرو
markaasuu xaajku yidhi war wanagii bahalkan iska dhaafnado iyada kaasa waxaaso iyadaa sheekada laakiin sheekadu waxay ahayd gabadha jacaylka gabadhii way joogtaa iminka tirana way joogtaa ina bay dhasho inantii way ka dhimatay ya waa gabadh macruuf reer macruufa baa dhalay waa la yaqaan gabadha gabadh wanaagsan dhabay mar baa is aragteen maan filay adiga laftaada isku aragteen jigjigaha waan la ku kulanay anigii maxamed ciga warsame berigii dib heshiisiintii beeraha oon halkaa ka dhigayna riwaayad loolan jiray dad kuwa aheshiina horta yaa cala oo dadka aan ku heshiisiinayna ayay noo dira ka timi dira dhabe markaasay noo timi labadayadii xaasba waa na waxsuunay markaa dabeedna bay noo sheekayso dee ninkii waa dhintay waa kaasoo jacaylkala lumay baan buug kaga qoray meel baan ku noodgeliyey jacaylkala lumay ya inan baan dhibay inta way ka dhimatay ya dad kale ma hayo xaynkaas yaa la xameeyey heestan badda caashiq markaas axmed gacayte la xameeyey taadan dad hadaas qabataan ayaa la xameeyey codka anigaa bilaabay laakiin waxa dhameeyey axmed mawle anigu markaa waxaa sameeyey uu taa sameeyey huriyo raganimay ninkaagii naxasnaa maxaa baqay ya ilaa anigoo xabsigii ku jira dumarkiina lagu dulmaya cabdiqays oo aanu nidhi jabuuti ka soco dhig lacagoo hees oo rawaado inoo doona iyona moogana iyana waa la ashkateeye cabdi waa la xidhiba maxamed moogana wuu iska soo dhoofay markaa uu ka soo baxsaday markaasaa dabeed cabdiqays noo soo diray cajaladii baa c i d da qabatay intaa ina gacaysi aanu u dhiibno dibadda joogaayo show meela ku dhegaysteen nima wanaagsan bay ahay anoo cidna may caayen laakiin cajila shan kale bay ahayd moogta siilaydii bilowgeedii bay ahayd silsilad sugaanadka sii cabdiqays baa aniga ii soo diray jeelka bilowgaas lacagna hooyadii wuu soo diray waxaa jiliilo nin loodhan jiray wuu soo dhiibay lacagtii waxaa siiya hooyadii cajiladii anigoo hayaa axmed geedsa naga qaada ina garooni loodhan jiray hudheelkiisa waa la saaray nima si ay dhiyo dhegeysanaya baa qabtay waxay dhahaan waa nimankan maxaabiista aad keenbi kale ka iibsan mayne bahashan dawlad kuma socotee laakiin sir baa ku jirtee yaa ninka soo socda noqo waxaad soo sidana celi anigu waa sadfulule heestan hadduu nugul cajiladii way jabiyeen markaasay xamaan ku rideen diba looma arag cajiladii heestan nugul saare axmed qaado hadduu markaasaan dee sameeyey markaa gabadhaad uu yidhi ninkaasi lixdan ku maan bixinayaan waa dooxi hargeysa lacag qaadaysa de wadaad marayo lacag markaasaan sameeyey cabdina la xidhay ina magalo soo baxsaday yaa la xameeyey iyadana yaa la xameeyey anaa sameeyey laxankaadaas kale waa hagaag daawadayaal halkaasi ayaynu ku yar hakinanaa qeybta koowaad waraysiga aan la yeelanay abwaan axmed salebaan bidde waxaanu ka sheekaysanay sidaad la socoteenba qaybo ka tirsan riwaayadihiisii qaar ka mid ah runtii abwaanku riwaayado badan buu leeyahay riwaayadahaasi qaar ka mid ah heesaha ku jira iyo qisooyinka riwaayadahaasi la xidhiidheenba qaybaha dambe ayaynu ku sheekaysan doonaa anagii abwaankuba la socod wanaagsan insha allah